Madaxweynaha waddanka Sri Lanka ayaa sheegay inuu xilka ka degayo 13 bishan Luulyo dibadbaxyadii rabshadaha hareeyay ee dalkaasi. Guddoomiyaha baarlamaanka Mahinda ayaa lagu wargeliyay iscasilaadda madaxweynaha. Dadweyne careysan ayaa shalay xoog ku galay guriga madaxweynaha waxay codsanayeen inuu xilka baneeyo. Waxay ka careysanaayeen dhaqaale xumida daran ee saameysay waddanka Sri Lanka. Dibadbaxayaasha ayaa shalay dab qabadsiiyay guriga ra'iisul wasaaraha. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa siyaasiyiinta dalka Sri Lanka ka codsaday in ay u istaagaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen xasaradaha dhaqaale ee ka taagan waddankaasi. Waxaa lagu dhawaaqay in madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa uu xilka iska casili doono maalinta Arbacada ah. Go'aankaas ayaa yimid kadib markii ay dad mudaharaadayaal ah ay la wareegeen hoygiisa rasmiga ah, sidoo kalena dab qabadsiiyeen guriga ra'iisul wasaaraha.